wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane Axmed Ciise Cawad oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Qaahira caasimadda dalka Masar ayaa maanta la kulmay dhigiisa Masar. wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Masar ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal, waxa ayna isla gorfeeyeen sidii loo sii adkeyn lahaa calaaqaadka ka dhaxeeya labada dawladood iyagoo kala saxiixay 3 heshiis oo Soomaaliya muhiim u ah. booqashada ujeedadeedu waxa weeye in la sii xoojiyo xiriirka Soomaaliya iyo Masar u dhaxeeya oo ah xiriir taariikhi ah oo qoto dheer leh oo ku salaysnaa walaalnimo waayahan dambe xoogaa aan sidii hore u xooganayn. marka waxaan ka dareennay dawladda Masar wasiirkeeda arrimaha dibadda hadda inay jirto dadaal xoogan oo loogu jiro sidii xiriirka Soomaaliya Masar loo xoojin lahaa dhanka siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada iyo tababaridda dadka Soomaaliyeed arday jaamacada la siiyo ha noqoto ciidamo la tababaro ha noqoto iskaashi dhaqaale iyo iskaashi siyaasadeed. waxaan kala saxiixanay 3 heshiis. kan u horeeya wuxuu ahaa iskaashi ka dhaxeeya maxadka diblomaasiyadda Masar iyo maxadka diblomaasiyadda Soomaaliya oo hadda dib loo habaynayo, dib loo hagaajinayo. kan ku xiga wuxuu ahaa iskaashi iyo wada tashi ka dhaxeeya labada wasaaradood, wasaaradda arrimaha dibadda Masar iyo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo la iska kaashanayo lagana wada tashanayo arrimaha siyaasadeed iyo xiriirka arrimaha dibadda ee labada dal. tan saddexaadna wuxuu ahaa iskaashi dhexmara wasaaradaha kala duwan ee dalka Masar iyo Soomaaliya. sidoo kale wasiirka ayaa booqday imaamka guud ee jaamacadda Azhar isagoo uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan Soomaaliya. Sheekh Azhar waxaan kala hadalnay waxaan uga mahadnaqnay kaalinta ay Azhar ka qaadato horumarinta aqoonta dalka Soomaaliyeed iyo waxbarashada noocyada badan oo tiro ku dhow 700 oo arday ay Azhar hay'adaha kala duwan wax ku bartaan oo dhakhtarnimo leh oo engineering leh oo arrimo diin leh oo dhaqaale leh oo beero leh maaragtay takhasusaadkaas oo dhan leh ilaa ardayda dugsiyada thanawiga ah. marka iyo sida ay Azhar weligeed u garab taagnay